إلهي سبحانه وتعالى وحو قدري إن أندب وصل نقضه صب جرتها وقت صبتها إن وحاس لها وحول بلغو وصميو وحبا يوتيوب كاقلين إن فيسبوك راها صادقين marka waxaan qarsan waayay ayaa maartay igu khalifay inaan soo galo waxa dhacday walaalayaal xaqiiqatan dagaal culus ayaa shahaadiinta kooda insiga ay kooda jinnigaba ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala ii qadar inaan la galo waana ka guulaysta xaqiiqatan saawad walaalayaal la yiraahdo ninkana waa saaxir ninka wuxuu hayo diinta maartay saasoo kale waxay soo socota walaalayaal ay soo gaartay in gurigayga xabad la dhaco si loo laayo ilmo yar oo dhalay iyo anigaba haddana ilaahay waa u qadari waayay in maartay arrintoodii u suurto gasho saawad walaalayaal waxa dhacday waxaan deganahay saadogtiinba magaalada Hargeysa ilmo yar oo ugu yahay 10 jir ayaa subaxii talaada waxay ka yimaadeen saabiyada meel yiraahdo oo ay maartay dhigtaan waa 5 caruur oo weeye waxa uu yar 3 jir baa ugu yar waxaana ugu weyn 10 jir baa ugu weyn saawed markay ka soo baxeen ayaa la waayay magaalada Hargeysa waa magaalo nabad weeye waxa markaa ka dhacana waxa weeye waa wax maartay qadar ilaahay saawgeed ilmihii yareera maartay ilaahay ubadkay uu ka dhigay waxa dhacday in markaa la waayo anigu markaa waxaan joogaa Garowe joogay hooyadii reerka waxay istiri sheegay looma sheegi karo bal iska sug adigu duurkii bay gaadhay haddana habeenkii bay gaadhay habeenkii bay soo wacday 4 saac habeennimo waxaaskayga koowaad weeye waa qofka aan isleeyahay noloshaada xaqiiqatan in badan ayay maartay la soo maartay wax badan ayaan la soo qaybsanay arrintii bay ii sheegtay waxay tiri saasa dhacday ilmahaana waa la waayay sidaa awgeed isla markiiba ganaacan ku qabay ilaahay shalay siiyay inuu maantana maartay sidoo doona yeelayo facaalun lima yurid ilaahay weeye markiiba ilaahay baan bari waxaan ilaahay oo rabbi wadaan nasiiyo awlaadaas haddana waxay ku jiraan gacanaadu ilaahay wadaan noo soo saari kara saawgeed walaalayaal xukuumadda Somaliland aad iyo aad naqaya ninka madaxweynaha ka